wafdigani ayaa waxaa muqdisho ku soo dhaweeyey xubna uu horkacayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Abukaate Mahdi Axmed Guuleed soo dhaweyntaasi kadib ayaa wafdiga Turkiga waxa ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Banaadir gaadiid isugu jiray kuwa dhismaha iyo nadaafadda oo gaarayay konton baabuur oo ka timid dalka Turkiga gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa u mahad celiyay dawladda waddanka Turkiga wuxuuna sheegay in qalabkani wax weyn oo ka qaban doono horumarinta gobolka Banaadir iyo nadaafadda intaba 27 bishii saddexaad ee hadda aan ku jirno ayaa waxaan kala saxanay ninka ugu sareeyay bisha cas iyo anaga aan kala saxanay wareejinta qalabkan gula wareejinayo laakiin maanta ra'iisul wasaare ayaa si rasmi ah noogu wareejinayo waa mas'uuliyad culus oo u baahan laftirkeeda gudasho qalabkan gula wareejinayo annaga cid walbaan u sheegnaa meel walbana waan ku sheegnaa walaalayna Turkiga waxa ay noo qabteen wax la taaban kara shakhsi kasta Soomaaliya gud meeshuu joogaba ma iloobaay qalbigiisana ka maqoy doonto walaalayna Turkiga waxa ay noo qabteen mantaanayntii Muqdisho iyo Istanbul oo aan dib anaga u kala seexana maayarka Istanbul waa huba inuu ka dhabeeyay wixii uu ballan qaaday waa wax muuqdo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga Visi Kenak ayaa isagana ka hadlay booqashadiisa waddanka Soomaaliya wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay ugu tala galeen deeqa isugu jiray horumarinta iyo taakuleynta dadka abaaruhu ay saameeyeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda Soomaaliya Abukaate Mahdi Axmed Guuleed oo isaguna hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladda Turkiga ay tahay dawlad walaal u ah dadka Soomaaliyeed Turkiga iyo shacabka Soomaaliyeed taariikhda dheer ayaa ka dhaxaysa oo ah ilaa boqortooyadii Cismaaniyiinta xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah waa mid ay dadka Soomaalidu xasuusan yihiin waa mid lama ilaawana waxaan dadka Soomaaliyeed ilaawi doonin gurmadkii madaxweynaha Turkiga ee hadda uu u fidiyay 2011 markii abaaruhu ay dhulkeena ku dhufteen dadka Soomaaliyeed aad bay taa u xasuusan yihiin waan kaaga mahad celinayaa ra'iisul wasaare ku-xigeen adiga iyo xukuumaddaadaba wafdigani ka socday dawladda Turkiga ayaa ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kula kulmay xarunta madaxtooyada waxayna ka wada hadleen horumarinta xiriirka Soomaaliya iyo dalka Turkiga